بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد يلحو ودلت سعودسين دونا قيب تسدحات ججبك عشر كينو مانتا وحاوية Operationist with Common Fractions. Operationist with Common Fractions waxaynu samayn doonaa inaynu isku darno laba jajab iyo wax ka badan, inaynu kala jarno, inaynu isku dhifano, inaynu isu qaybino. marka casharkaynu waa ka intaynu example ka aynu gulin ka hor meeshan waxaan ugu qoran saddex qodob ay muhiim tahay inaynu si fiican aynu u fahamno. qodobka koowaad waxa weeye the sum and difference of fractions of the same denominators is found by adding and subtracting the numerators. wadarta iyo kala goynta jajabyo laba jajab markii la isku daraayo ama la kala goynayo oo same denominators leh macnaha hooseeya isku mid ah ayaa waxaynu ku heli doonaa inaynu si toos ah aynu isugu darno aynu kala goyno hooseeyaasha. addingka waxaynu isku daraynaa markii ay ku dartahay, waxaynu kala jaraynaa markii uu fractionku ama jajabku yahay ka go. waa markasta oo hooseeyaasha labada jajab ama saddexda jajab ama inta ka badanba ay isku mid yihiin. qodobka labaad ee muhiimka ah inaynu ogaano waxa weeye the product of fractions is found by multiplying the numerators and multiplying the denominators. taranta jajabka ayaa iyadana waxaa lagu helayaa iyadoo markaa la isku dhifanayo sareeyaasha jajabka iyo hooseeyaasha jajabka. macnaheedu waxa weeye laba jajab ama saddex jajab markii inala siiyo oo amarkuna uu yahay inaynu isku dhifano ayaan waxaan samayn doonaa inaynu isku dhifano sareeyaasha hooseeyaashana aan isugu dhifano si toos ah. qodobka saddexaad ayaa isagana wuxuu yahay the quotient of fractions is bounded by multiplying the divided by the reciprocal of the divisor. markaynu soo qaybinayno jajab ayaa isagana waxaanu ku heli doonaa inaynu markaa aynu ku dhifano tirada divided-ka ah oo la qaybinayo ee rogaalka tirada loo qaybinayo. tirada la qaybinayo oo hore oo toos u soo qaadano waxaynu ku dhifanaynaa rogaalka tirada eeda wax loo qaybinayo. ciwaankeena koowaad waxa weeye addition of fraction with same denominators. waa isugeynta jajab kaasoo leh hooseeye isku mida. example-ka koowaad example 1 waxaa inoo qoran what is waa maxee 1 divided by 4 plus 2 divided by 4. hal la hoos dhiga 4 markii lagu daro laba la hoos dhiga 4 maxaa soo baxaya? haddaba waa ka solutionka xalkiisi waa ka waxaynu leenahay 1 divided by 4 plus 2 divided by 4 ayaynu soo qaadanaynaa hooseeyaasha maadaama ay yihiin same denominators labada jajab ayaa waxaynu leenahay midaan ku qaadanaynaa toosna waxaynu isugu daraynaa sareeyaasha. haddaba 1 plus 2 way noqon intaa waxay leegtahay hooseeyaasha aanu soo qaadano halkii xaba aynu soo qaadano sareeyaashana aynu isugu geyno. haddaba 1 divided by 4 plus 2 divided by 4 waxaa soo baxaya 3 divided by 4. example-ka labaad find the value of waxaan raadinaysaa qiimaha 5 divided by 10 plus 7 divided by 10. sidoo kale hooseeyaasha waa 12 maadaama ay isku mid yihiin ayaynu mid qaadanaynaa numeratorska ayaynu toos isugu daraynaa. haddaba waa 12 oo kore ka soo bixi doona markii 5 lagu daro 7 hoosna waxaa ku yaala 10. haddaba markii la sii fududeeyo oo kor u qaybino 2 hoosna inuu qaybino 2 ayaa intaa waxaa soo baxaya 6 la hoos dhigay 5. waana jajab oo markaa improper ah. jajab improper-ka ah waxaa loo sii qori karaa in markaa laga dhigo mixed fraction. haddaba waxaanu dhihi karnaa 1 divided by 5 ama markaan u sii bedelno mixed fraction. example-ka inooga xiga ee saddexaad waxa weeye work out. waxaad ka shaqaynaysaa 2 divided by 6 plus 2 divided by 6 plus 4 divided by 6.
haddaba hoosayaasha maadaama dhammaanba ay isku mid yihiin ayaynu waxaynu sameynaynaa inaynu hoosayaasha mid ka soo qaadano dhammaan sareeyaashoodana aynu isu geyno. haddaba waa ka 2 plus 4 intaa waxay leeg tahay 2 plus 2 waa 4 4 plus 4 na waa 8 divided by 6 ayaa noo soo bixi doonta. haddaynu sii fududeyno aynu kor u qaybino 2 kor 4 baa ka soo baxaysa. haddaynu hoos u qaybino 2 na waxa ka soo baxaya 3 maadaama uu yahay isaguna jajab markaa oo jajab maqumana ah ayaan waxaanu ka dhigi karnaa ama aynu bedeli karnaa tiro dhafan. waxay noqon doontaa marka 1 oo horgala ah ayaa 1/3. example-ka afraad add 4/7 plus 3/7 waa sidoo kale waxaynu yeelaynaa inaynu hoosayaasha mid ka qaadano sareeyaashana haynu isu geyno. haddaba waa ka 4 plus 3 4 plus 3 waa 7 hoosna waxa yaala ama ku hoosaya ku aha 7. haddaba laba tiro oo kasta markii la isu laba tiro kasta isla markii la isu qaybiyo waxa soo baxa hal. haddaba 7 divided by 7 na waxa ay la mid tahay hal. afarta example waxaan u maleynayaa fraction-ka hoosayaashu markay isku mid yihiin in inaga filan tahay. haddaba exercise-kan yar markaa ka soo shaqee insha Allah. number 2 add 3/5 to 4/5 to what is soo shaqee tartiib. ciwaanka ku xigay waxa weeye addition of fraction with different denominators. waxaanu isku daraynaa ama waa isku darida jajab kaasoo leh hooseeye markaa kala duwan. haddaynu example-ka koowaad aynu fiirino what is waa maxay 3 divided by 4 plus 1 divided by 3. haddaba haddaynu solution-kiisa ama xalkiisa aynu fiirino si markaa loo shaqeeyo jajab hoosayaashu ay kala duwan yihiin ayaa markasta waxaa qasaba in markaa la raadiyo waxa la yiraahdo LCM. aynu horay u soo baranay sida laba tiro loo raadiyo LCM-ka ama lowest common multiple ama dhufsanyaraha ay wadaagaan. haddaba 4 iyo 3 LCM-koodu wuxuu noqonayaa iyagoo la isku dhifto sababtoo ah 4 waa tiro markaa dhabana 3 na waa tiro markaa kisiya. 3 iyo 4 na wax markaa isir wadaaga ay yihiin ma jirto. haddaba toos waan isugu dhifanaynaa waxaa noo soo bixi doona 2 iyo 10. marka waxaynu leenahay 4 waxaynu ku dhifanaynaa 3 waxaa soo baxaya 2 iyo 10. 2 iyo 10 markaan u qaybino 4 na waxaa noo soo bixi doona tirada kale. laba tiro ka imaaday 2 tiro oo si toos ah la isugu dhiftay. haddaynu tirada aynu u qaybino labadii tiro oo la isku dhiftay midood waxa ku soo baxaya markasta tiradii kale. haddaba 12 markaan u qaybino 4 3 baa soo baxaysa. 3 waxaan ku dhifanaynaa 3 waa 9 calaamadaynu qaadano plus 12 baan waxaan u qaybinaynaa 3 waxa soo bixi doona 4 waxaan ku dhifanaynaa 1 marka waxa soo baxaya 4. haddaba markaanu waxaanu sameynaynaa inaynu hoosayaas ka soo qaadano 2 iyo 10 3 markaaynu ku darno 4 na waa 3 iyo 10. maadaama ay tahay tiro markaa ama jajab markaa improper ah waxaynu u bedeli karnaa mixed fraction tiro dhafan waana ka waxay noqon doontaa 1 horgala ah iyo 1 divided by 12. example-ka labaad add 4/7 to 5/6 waa laba tiro oo hoosayaashoodu markaa ay kala duwan yihiin. waxaanu leenahay waxaan raadinaynaa LCM-ka 7 iyo 6 isaguna waa 42 maxaa yeelay waa tiro markaa kisiya iyo tiro markaa dhabana wax isir wadaaga tiro dhammaan loo qaybin karo oo isira oo ay wadaagaan ma jirto. haddaba waxaanu leenahay marka sidoo kale 7 waxaanu ku dhifanaynaa 6 waxa soo baxaya 42 waxaan u qaybinaynaa 7 waxa soo bixi doona 6 waxaan ku dhifanaynaa 4 waxa soo baxaya 24 lagu daray 42 waxaan u qaybinaynaa maxaan ku raahday 6 waxa soo baxaya 7 waxaan ku dhifanaynaa 5 waxa ku soo baxaya 35. hoosayaha aan iska soo qaadano oo 42 ah. haddaba 24 markaynu u geyno 35 na waxa soo baxaya
konton iyo sagaal maadaama ay tahay tiro markaa improper fraction ayaynu waxaynu bedeli karnaa tiro dhafan. haddaba waa kaa waxay ku noqon doontaa hal oo horaya iyo 17 divided by 42. example-ka ama tusaalaha saddexaad. tusaalaha saddexaad, find the value of, waxaad raadinaysaa qiimaha 3 divided by 4 plus 1 divided by 2. haddaba haddaynu ka shaqeyno waxaynu samayn doonaa sidii oo kale inaynu labadan tiro isku dhifano. ogow labadan tiro hadda LCM kooda markii la raadiyo waa 2 sababtoo ah 2 waxaan u qaybin karnaa 2 4na waanu qaybin karnaa 2. laakiin hadda waxaan iska isticmaalay inaan laba tiro aan isku dhifano, hooseyaashan taas isku dhifano, labada tiro kalena cross ama sida isweydaara aan isku dhifano. laakiin kuwii hadda oo kale waxaan raadinaynay LCM kooda. haddaba hoos labada markaynu 4 ku dhifano 2 waa 8, labaynu waxaan ku dhifanaynaa marka 3 waxa soo baxaya 6 lagu daray baynu leenahay. 8 waxaan ku dhifanaynaa maxaan ku raahday 4 waxaan ku dhifanaynaa 1 waxa soo baxaya 4. haddaba labada hoose aynu inta soo qaadano 6 markaynu ku darno 4 waxa soo baxaya 10 markaynu u qaybino 8 aynu isku fuudeynana waxa soo baxaya 1 oo marka horgala ah 2/8. haddaynu 2da iyo 8ka maadaama tiro marka multiple ama isira ay wadaagaan uu jiro oo 2 ah ayaynu koores waxaan u qaybinana 2. haddaba waxa soo bixi doona 1 horgala ah iyo 1 divided by 4. waxaynu xalin karnaa other way kan halkaan oo isna ku qoran yahay waa midka hadda sheegayay labada number 4 ba waxay noqonaysaa marka LCM ka 4 baynu qadan karnaa 4 aan u qaybinaynaa 3 bay noqon. waa ka hal baa soo baxay macnaha 3 ku dhifo waa 3, 4 aan u qaybinaynaa 2 waxa soo baxaya 2 ku dhifo halna waa 2 markaynu isku darno waa 5 loo dhigo 4na waxa haddaan u qorno LCM waxa ku soo bixi doona haddaan u qorno oo bedelno weeye mixed fraction waxa ku soo bixi doona 1 horgala ah iyo 1 divided by 4. haddaba ka iyo ka marka waa isku mid. example-ka afraad waa work out. waxaad ka shaqeynaysaa 5/6 plus 3/8. sidii oo kale aynu toos isugu dhifano aniga waxba LCM raadin aynu waxaan sameyn karnaa inaynu labadan hooseeye aynu toos isugu dhifano. haddaba waa ka 48 baa soo baxaysa, kuwana waxaad isugu dhifanaysaa cross 4 waxa 8 ku dhifataa 5 waa 40 loo geeyay 6 ku dhifa 3na waa 18. haddaba maadaama labada hoose isla yihiin mid baynu soo qaadan 40na waxaan ku daraynaa 18 inta waxa soo bixi doona 58 oo la hoos dhigay 48. haddaynu u qorno mixed fractionna waxaa noo soo bixi doona 10 la hoos dhigay 48. labada tiro maadaama ay yihiin laba number oo maxaan ku raada dhabana waxaynu yeeli karnaa inaynu kor u qaybino 2 10 haddaynu u qaybino 2 waxa soo baxaya 5 hoosna waxaynu u qaybin karnaa 2 oo waxa soo baxaya 24. marka saasna waan u sii qori kar. other way waxa weeye inaynu LCM kooda aynu raadino 24 buu noqon 24 waxaynu u qaybin doonaa 6 waxa soo bixi doona 4 waxaynu u qaybin doonaa 6 4 baa soo bixi doonta 5 aynu ku dhifanaynaa 20 bay noqon calaamada plus aynu qaadanay 24 waxaynu u qaybinaynaa 8 baa soo bixi doonta 3 baynu ku dhifanaynaa. haddaba waa 29 markii la isu geeyo hoosna waxa ku ahaa 24. haddaba markaan fududeyno waxa soo bixi doona 1 horgala ah iyo 5 la hoos dhigay 24. haddaba waa ka labada qaaba marka wad u shaqeyn kartaa kii ku fudud insha Allah. exercise ayaa haddana inoogu xiga. exercise-ka waa number 2 ilaa numberka 5 marka soo shaqee insha Allah isku socday waa numberka ilaa I ayuu ku dhamaanayaa ilaa I. ciwaankeena xiga wuxuu noqon doonaa subtraction of fraction with same denominators. kala goynta jajab kaasoo leh ama jajabkaasoo leh hooseeye marka isku mid ah. waa inoo qaybta xigta insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.